تفسيرك سورة الهمزة. سورة الهمزة waxay ku soo degtay magaalada Makka waxayna ka kooban tahay 9 aayadood 35 kelimadood iyo 133 xuruufood. sababta ay ku soo degtay suuradani waxa la sheegaa in suuradani ay ku soo degtay nin la dhaho Aknas ibn Shariq oo ahaa nin hadal macaan balse hoosta ku qarsan jiray karaahiyo. sidoo kale waxa la sheegaa in Umayya ibn Khalaf uu nabigu xaman jiray durina jiray isagoo la jooga kadibna suuradan ayaa soo degtay. si kastaba ha ahaatee Mujaahid wuxuu yiri suuradani waa mid guud oo caama wuxuu ula jeedaa cid gaara kama hadlayso ee ciddii sifooyinka laga helo ayaa looga jeedaa. tafsiirka suuradda bismillaahir rahmaanir rahiim magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaar ahba naxariista. waylun likulli humazatin lumazah halaag ayaa u sugnaaday mid kastoo waxanta waxna ceebeeya yacni duraya dadka. alladii jamaca maalan wacaddadah kaasoo ururiyey xoolo tiriyeyna yacni ay ka mashquuliyeen cibaadadii alle. yaxsabu anna maalahu akhladah ma wuxuu malaynayaa in xoolihiisu waarin. kalaa layunbadanna fi lxutamah saas maahee waxaa lagu tuurayaa xudama. xudama waa magac ka mida magacyada naarta. wamaa adraaka ma alxutamah maxaa ku ogeysiiyey xudama. naarullaahi almuuqadah waa naarta ilaahay ee la shiday allatii tattalicu cala alaf'idah taasi oo gubaysa qulubta. innahaa calayhim mu'sadah waana lagu dabooli naartaas gaalada fii camadin mumaddadah tiirar la fidiyey yayna ahaan dhexdeeda